الرحمن الرحيم ان داود الكسو دواده فرانقين aanu ka hadli doono waxyaabaha ka dambeeya dagaalada ka soconaya bariga dhexe sidoo kale daawad barnaamijkeena waxaan ku falanqeynaynaa waxyaabaha loo yaqaan geopolitics ama waxyaabaha keena juqraafiga siyaasadeed dagaaladan saameyn ceenkee ayaa ka dhalan karto marka loo eego dhaqaale ahaan dagaaladan intee ay ku fidi karaan sidoo kale waxaan ku eegi doonaa ama barnaamijkeena ku falanqeyn doonaa inta badan midqaana waxyaabaha laga yiri dagaalada iyo wax ka soo cusboonaaday ay ka sheegaan inta badan khabiirada askareed ama wax loo yaqaan al-khubraa al-askariyun marka daawada barnaamijku ma noqon doono qarax ayaa dhacay diyaarad ayaa soo dhacday laakiin waxa xoog inta badan ku saari doona saameynta dagaalka ama saameynta oo dagaalka oo inta badan yeesho inta maanta qodobada aan barnaamijkeena ku soo qaadan doono waxa kamid ah maxay tahay istiraatiijiyadda hadda Mareykanka Israa'iilku ay darsayaan oo ah in la go'doomiyo jasiirad ka tirsan jasiiradaha dalkaasi Iran arintaasi maxaa ka jiro saameyn ceenkee leeg ay ku yeelan kartaa dunida inta kale mase dhici karta in ay dagaalka u balaarto Iran sanadteeda maxay u dhibaysaa haddii jasiiradaasi laga go'doomiyo sidoo kale daawada barnaamijkeena waxaan ku soo qaadan doonaa aan ku falanqeyn doonaa sidoo kale miyay jirtaa ama waxyaabaha la sheegaya in la burburiyay qalabkii inta badan bariga dhexe yaala difaaca saldhigyada bariga dhexe mataqaana ku yaalay bariga dhexe sidoo kale barnaamijkeena ayaan daawada ku soo qaadan doonaa waxaan rajeynayaa in aad nala joogto oo aad mataqaana aad nala dhamaysato haddii aan ku bilaabo daawada barnaamijkeena waxaa jirta jasiirad ku taala dalkaasi Iran oo loo yaqaan mataqaana Qaraj jasiiradda Qaraj daawada haddaba jasiiradani waxay mataqaana ay u jirtaa 25 kilomitir xeebaha dalkaasi Iran waxayna tahay goob Iran mataqaana ay ku sifeyso inta badan shidaalkeeda iyo saliidda sidoo kalena ay ku kaydiso kana dhoofiso saliidda marka waxa leeyahay magaalo ama isha jasiirad aad istiraatiiji ugu ah alaabahan ay dhoofisana ama shidaalkan inta badan ay dhoofisana waxay inta badan aad uga qaata ayaa leeyahay dalkaasi China marka jasiiradan waa jasiirad muhiim ah waxay leedahay airport waxay leedahay mataqaana qawaacid askariya ama saldhigyo ciidamo ay sidoo kale jasiiradan leedahay marka haatan waxaa sheegaya nin oo mataqaana ishaag ah falanqeeye geopolitics oo loo yaqaan Jay Loran oo ka tirsan Hebrew University ku taalo Jerusalem ayaa arintan mataqaana aad u falanqeeyay isla markaana soo bandhigay marka wuxuu ka sheekeeyay muhiimadda ay leedahay jasiiradan Qaraj jasiiradan Qaraj wuxuu leeyahay waxay mataqaana shidaalka waa nolosha dalkaas Iran waxayna ku dhoofiyaan ayuu leeyahay shidaalka taariikh ahaan waxay qayb weyn ka qaadataa dhoofinta saliidda Iran 80 ilaa 90% marka haddii la carqadeeyo ama la xakameeyo jasiiradan dhaqaale ahaan Iran wuxuu leeyahay si toos ay isku dhiibaysaa oo waa meel laga mataqaana ishaag qaban karo ayadoo gudaha laga burburinin oo ama mataqaana ishaag jabhad daaqiliya loo dirin sidoo kale fikradda istiraatiijiyadeed oo jasiiradan ayuu ka hadlay wuxuu leeyahay haddii mataqaana la ridi lahaa leeyahay nidaamka Iran waxaa suurtagal ah in la cadaadiyo waxa ka muhiimsan ama ka dhow ayuu leeyahay in la cadaadiyo dhaqaalaha iyadoo la xakameynayo leeyahay meelaha muhiimka ah ee jasiirada ka mid ah jasiiradan Qaraj tanna waxay la mid tahay ayuu leeyahay fikradda xakameynta meelaha istiraatiijiga iyo ganacsiga tabarta يعني إيران وما بحنا إن جودها الجودة إن دون تلاقي قبتي وبعنت ولا هاي جزيرة أنا وماش إشتراك أنا كله في سوق إشتراك الوظيفة فيه وماش أي كأنا قاعد ولا جزيرة القرج مركوا إن حكاس إن متقنا يشك رقبته وحسيده كلا إن فكرة كله حاجة تقولين عمل تريه مريكم كوحلية هاي جزيرة إن حدي أو قدومي إيران ويأحتي لكن وحاسب على كأنه قدومي تاسم وسهلتها مريكم كإن مراكب iyo mataqaana inta kansada Israa'iil iyo Mareykan ay go'doomiyaan khawradu waxay leeyihiin taas ma dhici karto soo waxay ku sameeyaan ama ay leeyihiin hadii la go'doomiyo ama isku dayo go'doominta jasiiradan waxa sahlan in maraakibtaas la beegsado waa jasiiradan Iran aad ugu dhowdahay Iran ciidan ahaan badan way xoogan tahay sidoo kale gantaalada si sahlan ay ku soo gaari karaan iyo diyaaradaha aan duuliyaha wadin ay leeyihiin si sahlan marka suurtagal ma in ay kor laga hareeray waxa suurtagal ah in tal isbeemeeyo mataqaana toos jasiiradan loo galo marka saameynta ay ku leeyahay karto maxaa waay China dalkaas China haddaba falanqeeyaashu waxay sidoo kale la xiriiriyay arintan China sababtoo ah leeyahay China wuxuu ku dhoofsadaa saliidda badan gobolka gacanka saliid ugu badan China wuxuu ka dhoofsadaa leeyahay gacankana ka dhoofsadaa marka haddii Mareykanku xakameeyo leeyahay arintan mataqaana oo Persian Gulf hadduu xakameeyo ama khaliijul Arab lahay waxay saameyn kartaa dhaqaalaha dalkaasi China ee Benjin marka waxay noqonaysaa in mataqaana China dagaalkan oo qayb ka noqoto waana waxyaabaha leeyahay dagaalku wuxuu isbedeli karaa istiraatiijiyahan waxayna qayb badan ka noqon karaa dalal badan
marka arrintan arrin cusub maahan Trump arrintan oo ah mataqaana kheyraadka ama in iska qabto meelaha kheyraadka istiraatiiji aad ay u isticmaal leeyahay waxaan inta badan la arkayba markii asagoo jasiirado badan adduunka raadinayo marka jasiiradan waa meel aad u muhiim ah laakiin waxay bedeli kartaa leeyahay wajiga ama mataqaana wajhada uu yeelanayo dagaalka ay bedeli kartaa dawladii intaas ku dhaafno taas qodobkeena xiga Iran ayaa waxay sheegatay in ay burburisay mataqaana qaybo ka tirsan ama inta badan salgiyada ku yaalay bariga dhexe oo Mareykanka ku lahaa waxayna sheegtay inta hartay inay mataqaana ay dhameystiri doonto haddaba dawladda maxaa lagu xaqiijin karaa ama sheegashada Iran ee ah mataqaana ka takhalusita inta badan salgiyada ku yaalay bariga dhexe waxaa jira qodobo inta badan aan ka soo arinay ama xog aan ka soo arinay mataqaana khubaro ku takhasusta howlaha militariga website ka hadla arrimaha dagaalka iyo falanqeeyaasha carabta intaba marka dawladda haddii aan u gudubno Iran waxaa looga bartay markay dagaal dhacaan in ay toos u beegsato Israa'iil oo mataqaana u isticmaasho gantaalo laga soo riday dalkeeda isla markaana ay kuwa qaar la qabto kuwa qaarna ay inta badan ay u gudbaan gudaha Israa'iil marka haatan waxaa leeyahay si u bilaabo dagaalkii 8 bari hadda socdo waxaa leeyahay waxaa moodaa in ay daciiftay awoodii mataqaana difaacidda Israa'iil iska difaacaysay gantaalada gaaraya hadda sabab loo sameeyo kuwa waxaa ka ah taas inta aan loo gelinse mataqaana sheeg maxaa keenay ama sheeg maxaa sahlay in mataqaana sheeg Israa'iil ama Iran gantaalada ay u gudbaan Iran waxaa leeyahay kuwa waagii hore ama dagaaladii hore marka loo eego horta 3 jiil oo hub ah ayaa hadda Iran isticmaashay ayay sheegayaan khibrada askari 3 jiil ee hubka ah waxay u kala qaadeen ilaa iyo mataqaana 3 qaybood jiil kasta waxaa ku jira ilaa iyo dhowr mataqaana gantaal magacyadooda haddii aan u gudubno jiilka koowaad waxaa ku jira ayaa leeyahay Shihab iyo Khiyam iyo Fatih iyo Zilzal saddexdaas waxaa leeyahay waa gantaalada ugu daciifsan marka loo eego labada gantaalo kale masaafo ahaan iyo mataqaana madaxda gantaalada ay wadaan culeyskooda iyo xawaarahooda iyo technology ahaanba waxaa leeyahay way ka daciifsan yihiin mataqaana labada kale gantaaladan Iran ama mataqaana sheeg waxay u isticmaashaa leeyahay dagaaladii hadda salgiyada Mareykanka ee qaliibka sababtoo ah masaafada way gaabantaa waxaan u dhawaa inay mataqaana meelahan ku kala cad danta kale ay kala heed Iran gantaaladani waxaa leeyahay waxay inay daaliso mataqaana sheeg Mareykanka iyo diyaaradahooda iyo inay istihlaakaan ama ay isticmaalaan mataqaana sheeg qalab aad qaali ah marka loo eego mataqaana gantaaladan waxaa kaloo lagu sabeynayaa jiilkan koowaad waxaa leeyahay maadaama ay tiro badan ka haystaan hubkaana waqti dheer yahay waqtigiisu waxay rabaan ayaa leeyahay inay ka takhalusaan marka sababahaas ay wuxuu isticmaalayeen ayaa leeyahay mataqaana hubkan oo jiilkan loo yaqaan sheeg jiilka koowaad Iran waxayna ka sameysay ayaa leeyahay gantaaladan tiro aad u fara badan sidaa darteed waxay marka rabaan inay mataqaana ay ka takhalusaan jiilka labaad haddii aan gudubno daawadayaal jiilka labaad waxaa leeyahay waxaa ku jira waa Khaybar Shakin iyo waxaa ku jira leeyahay Qadir iyo waxaa ku jira Imaad kuwaana marka waa gantaalo ka hormarsan kuwii hore ayaa la leeyahay Iran waxay hore u wareeri jirtay ayaa leeyahay Israa'iil gantaaladan xawaaruhuduna wuxuu gaari jiray ayaa leeyahay 10 mataqaana hypersonic ama awoodda hubka uu ku socdo ama 10 Mach waxa loo yaqaano madaxii gantaalkiiba wuxuu kalkii gantaalka madaxiisu wuxuu wada ayaa leeyahay 500 kg ilaa in gaarayso 750 kg laakiin markii hore raadaarada Mareykanka ee qaliijka ayaa si sahlan wuxuu u ogaa jireen 15 daqiiqo kahor ay waxay ogaa jireen gantaaladan heerka labaad markaasna Israa'iil waxaa la jiray way ka tabaabushay jirtay oo markay ka tabaabushay ka bacdin waxaa la yiri waa ama way qaban jirtay inta badan kuwa qaar maadaama ay gudbi jireen marka gantaaladan nidaamkooda saas ayuu ayaa leeyahay waxaa jira marka uu ku soo haray daawadayaal jiil lagu macdaray jiilka saddexaad haddaba jiilka saddexaad wuxuu ku horan yahay Quraysh Mahir Sijaal iyo Fatih iyo Haji Qasim oo jiilka saddexaad marka kuwan waa gantaalada ugu awoodda badan ee Iran hadda haysata ee leeyahay xawaar ahaan ku hore waa ka badan yihiin waa 15 hypersonic awood ay ku socdaan halkii gantaal madaxiisu wuxuu wadaa leeyahay 1500 oo kg waxaad dareemi karnaa meesha lagu dhufto marka waxay leeyihiin awood oo mataqaana oo xawaar sare ay leeyihiin marka la eego ayaa leeyahay waxyaabahan iyo hubkan iyo systemkan Iran hadda waxay awood u leedahay inay mataqaana gantaalada inta badan aan la gaarin oo aan la qaban marka lagu rido Israa'iil inta badan waxay hubkan aad ugu isticmaashaa Israa'iil marka way adag tahay leeyahay in la qabto marka waxa leeyahay in kan saliyadii macluumaadka bixi jiray inay daciifeen waxa kooga ah oo mataqaana lagu ogaanaya gantaaladan inta badan waxay ku dhacaan meelihii la rabay ay ku dhacaan wax xog sida hore loogu bixi jiray xilliyadii hore ma jirto in looga bixiyo waxaa kaloo jirto in ay daciiftay awoodii Mareykanka ama saliyada Mareykanka
mareykanka ayaa xilay wuxuu codsaday oo weydiistay codsi qaybo ka mid ah dowladaha Asia ku yaalo isagoo ka codsanaya in maraakiibtiisu ay kusoo xirtaan halkaasna ay mataqaanaa saldhigyo hor ka samaystaan taas lafteeda waxaa leeyahay waa nuqul ka mid ah inay saldhigyadaas daciifeen tan saddexaad ama midda kale oo loo qodobeynayo waxaa waaye mareykanku wuxuu bilaabay dagaal oo ku beegsanaya wax loo yaqaano sheeg ilaha muhiimka ah nolosha sida inuu duqeeyo mataqaanaa meelihii batroolka meeshu ka qaariji lahaa dad oo mataqaanaa oo ku filaala weeraro mataqaanaa daqiiq oo halisteeda leh iyo inuu mataqaanaa oo beegsado mataqaanaa madaarisi oo Iran ugu riixo ama dadka loo cabsi geliyo marka waxyaabahaas oo xisaabaya ayaa leeyahay in mataqaanaa saldhigyadaas wax soo gaarin haddana aysan jirin awoodii mataqaanaa mareykanku oo lahaa marka waxyaabahaas waa waxyaabihii laga yiri dagaalkii soconayay 8 bari isla markaana noocan ma cadeynaya in Iran ay dagaalkan ku gacan sareyso xagga marka loo eego sheeg habka gantaalada loo isticmaalayo bariga dhexe mareykanka laftirkiisu awoodi waayay ama mataqaanaa inuu difaaco dowladihii oo uu sheekeeyay inay mataqaanaa ay yihiin saldhigyo laga difaacay ayagana waxaa leeyahay ka difaaci waayay Israa'iilkii saldhigyadan aas loo dhisana uga difaaci waayay marka daawadan wixii kasoo kordhay barnaamijyadkan aan kula wadaagi doonaa waxa la wixii taxliil falanqeyn oo ku saabsan arrimaha dagaalka waxaana xoog inta badan ku saari doonaa waxa quseeya dhaqaale ahaan dunida iyo sida uu u saameynayo waa maxsantihiin وأنا واسع على كفتنا وحنجينا يا وحي متقانا حق أي وحي أنا قبلي كتيرنا وإن شاء الله وين كده سنينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.